gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeeka Ismaaniye oo xafiiskiisa kula hadlay maanta warbaahinta ayaa isagoo tixraacaya go'aankii ka soo baxay guddiga heer qaran ee madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay kahortagga cudurka coronavirus ayaa waxa uu shaaciyay in guud ahaan goobaha waxbarashada gobolka Awdal la gelin doono maalinta bariya ee 19 bisha oo ah maalin Khamiis ah in gabi ahaanba ay fasax gali doonaan gabi ahaanba goobaha waxbarasho gudoomiyaha sidaas sheegay ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay arintani mid lagu sugayo badqabka ardayga waa kan hadaba gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal oo amuurtaasi ka hadlaya waxaan halkan ka bayaaminaynaa ama wargelinaynaa dhammaan bahda waxbarashada ee gobolka Awdal anigoo tixraacaya go'aankii guud ee ka soo baxay guddida la tacaalida iyo kahortagga markaa xanuunkan Ilaahay nooma keenee COVID-19 oo ahaa in muddo 4 week ah la fasaxo dhammaan waxbarashada waxaan wargelinayaa dhammaan bahda waxbarashada laga bilaabo jaamacadaha dugsiyada sare dugsiyada hoose dhexe xadaanadaha malcaamadaha dugsiyada gaarka ah ama waxbarashada dadka waaweyn meelaha lagu dhigto markaa private ama computerada meel kasto waxbarasho ku saabsan tahay waxaan wargelinaynaa inay muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmi doonto haddii Ilaahay raado beritoole oo 19 oo Khamiis ah inay fasax yihiin muddadaas oo loogu talagalay in laga wacyi geliyo dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland sidii Ilaahay xanuunka nooma keenee looga tacaali lahaa oo ah xanuunkan oo ku mid fidaya marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa oo inuu ka warsugaynaa guddidaasi heer qaran gaar ahaan inaga ka gobol ahaan markaynu nahay wasaaradda horumarinta caafimaadku mar walba ama awaamiirta ama fariimaha caafimaad aynu soo gaarsiisaan insha Allah ku dhaqmi doonaa waxaan rajaynayaa Ilaahay waxba inuu inoo keenin Ilaahay baynu baryaynaa inuu tala saarana marka waxaan leeyahay dhammaan waxbarashada muddadaasi waa inuu go'aanka u hogaansano ah guddida heer qaran ay soo saartay inaynu u hogaansano marka dugsi kasti waxaanu faraynaa muddada 4 week ah inuu fasax yahay gaar ahaan sidaynu maamulayaasha ku wargelinay waa in ardaydana loo diraa ama waxa homework ama layli shaqo guri oo muddadaasi ay ardaydu dugsiyada joogaan inay ka soo shaqeeyaan insha Allah waxaanu rajayn doonaa inaynu markaynu soo noqono sidaynu u kabi lahayn haddii Ilaahay raahdo laakiin iminka waxaynu u dhagnugulinahay ama aynu raacaynaa awaamiirta guud ee ah fasaxaasi oo ah ka soo baxay heer qaran heer gobol aan ku hadlay bahdii waxbarashada waxaan leeyahay waynaynu soo dhaweynaa oo aynu ka hawlgalnaa sidii fayaqabka ama badqabka caruurta aynu gacanta ku hayno xagga caafimaadkana marka aynu la tacaalnaa wali wax kii soo jira oo jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhawaaqay ama gobolka Awdal ma jirto laakiin muhiimaddu waxa weeyaan bahda caafimaadka oo inooga dhow ama qaybta caafimaadka iyadoo qusaysa waxa ayna tiro inaan ku dhaqanaa xanuunkan waxa la dawo mala ka hortag buu leeyahay marka ka hortagga waxa kamid ah inaan la isku soo bixin oo goobaha laga taxadiro waxa kaloo uga faa'iideysan lahaa inaan dhammaan awaamiirta caafimaadka ay soo dejisay ama farxadahaado inaynu aad u dhageysano waxyaabaha tilmaamaha layna siiyeen aynu raacno taasaynu insha Allah kaga inay badbaadaynaa Ilaahayna talaynu saaranaynaa marka waxaan leeyahay go'aankii oo soo dhaweynaynaa sida inaynu u qaadanaan inagu waajib ah muddadaasi 4 week ah kol walba waxaynu la socon doonaa bahda marka meediyaha iyo meelaha isgaarsiinta ah kolba wixii ka soo baxa hadii inta ka horeysay Ilaahay khayr wadanku noqdo wax walba ka istaagaana waa alxamdulillah hadii kan la xanu hogaansaminaa mar walba waxay bahda caafimaadka oo u xil saaran hawshan waxayna tiraahdo markaas intaas ma oran la saynu dhamaan maamulayaasha waxaanu hore ugu wacyi gelinay oo niri marka horeba inay iskuulada wasaaradda caafimaadku soo marto wacyi gelin guud siiso si wacyi gelinta haddaan anagu bixino waxa dhici karta inaanu qaabkii caafimaadka garab marno laakiin sidii saakabaan wasaaradda caafimaadka ku balansan dugsiyada qaar bay soo mareen
wacyigelintii saxda ay siiyeen taasaana muhiim ah oo dadka qaar baa say u turjuntaan qalad noqon kartaa waalidiintana waxaanu faraynaa inaynan waxba jirin laakiin ay tahay un taxadir guud un ay tahay